nin Soomaaliyo dhulkiisa iska aamino iska joogay baa waxa dhacday shaqo la'aan baa ku dhacday 6 sanadood oo shaqo beel ku dhacay maalintii dambu fikruhu waa heede waa tan cadaad noqotay sheekadii maxaad samaysaa fikir buu keenay fikir buu aabulay wuxuu yiri dhakhtar bas ka noqday waa nin aqoon lahayn dhakhtar buu noqday board buu ku soo qoray hadii waxa lagu daweynayaa $100 hadii lagu daweyn waayana waxa lagu siinayaa $50 hadii lagu daweyn waayo $50 baa adiga lagu siinayaa $100 aad haysta ayaa $50 lagu daraya waliba ay ku soo qoray board nin da xagan yamanaha ka yimid oo maskax iyo wax iska baadbaadisay ayaa u soo fikiray dhakhtarkii buu yimid dhakhtar waa doctor waan xanuunsanaya buu xagee ku xanuunsan buu markaasuu yiri dhadhankiiba iga lumay oo carabkayga waa bilaadana oo dhadhankiiba waa laay dhadhankiiba ka lumay kalkaaliso buu dawada ku jirta sanduuqa 22 ka soo saaro laba dhibcood afka kaga shubo inta ba dhaqaaqdo oo soo saartayo kala qaad afka way ugu shubtay allah buuri baalkan waa shidaale afka ugu shubtay hanbal yabaal ilaa uu ku soo noqday dhadhankaaga ka lacag waa laga qaaday maalintii dambu xanaaqay isagoo cadan nafta ka baxsato jiqa ayuu soo fikiray hadana fikir kale ka buur uu soo noqday wuxuu yiri xusuustii baa iga luntayo bila xusuus baa xusuustii baa ka luntay way buuri kalkaaliso buuri sanduuqa 22 dawada ku jirta ka soo saaro laba dhibcood afka ka sii alla beesho iga daadigto buuri taas waa shidaalkii baaltii ambal yabaal oo ku soo noqday xusuustii ka lacag oo ka qaaday lacagtina waa laga qaaday maalintan saddexaad ku darsigiisuna maalintii saddexaad uu soo noqday isagoo isla wixii dhan kaba duwan wallahi ma tahay oo sheeka aan ciido ku ogeynba waa ka yiruna aragii baa wallahi waa indhalay yiri meedan indhalay ayar hadana anagu ma hayna taa dawo ma hayna baa oo waa kan ka takaagi doonay waxa loo dhigay $20 sano weeyay wuxuu raawar waa $50 bay habal ilaa tan nakeen $100 nakeen inta asan kaga baxaya